kulanti wacan oo wanaagsan intana daawanaysa idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo aanu ku falanqayn doono qaabka Soomaalidu u isticmaasho suugaanta Soomaaliyeed gaar ahaan xagga heesaha iyo gabayada wax barnaamijka marti ugu ah abwaano si aada u yaqaan afka Soomaalida iyo waliba xagga suugaanta Soomaaliyeed gaar ahaan ruwaayadihii waayadii hore laga dhigi jiray wadankii Soomaaliya qaarkood iyagu ay abuureen iyo heeso fara badan sidoo kale muusishiino ayaa ila jooga iyo heesa waxaan jeclahay inaan iyaga barnaamijka ka qayb geliyo oo aan ku tirxan bixin doono qaabka heesaha Soomaaliga loo sameeyo iyo waxa looga baahan yahay goorta hees la sameeyo xagga dhaqanka afka diinta iyo deegaanka sidoo kale gabayga laftirkiisa maxaa looga baahan yahay waxa kale inuu ku soo qaadi doonaa ruwaayad cusub oo aad ka daawan doontaan muuqaal tabiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ruwaayadaas oo lagu alifay magaalada London waxaana ruwaayada loogu yeeraa qurba lagu jabay iyo jacayl kala maqan ruwaayada laftirkeeda ayaynu ku turxan bixin doonaa qaabkay u sameeysan tahay iyo waxa ay ruwaayadu ku saabsan tahay sidoo kale gabayo cusub oo loo sameeyay waayahan cusub ee jira iyo isbedelka Soomaaliya waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya oo marti ugu ah anigoo jecelna ka bilaabo dhinacaygan abwaan Cabdi Ciise Caynte oo ah sameeye alifa ruwaayado iyo heeso iyo waliba gabayo sidoo kale waxa dhinacayga kala midigta fadhiya Kamaaludiin Xaaji Yuusuf oo ah musician la xamiiste isla markaana ah jira kana soo qayb qaatay ruwaayo fara badan oo ruwaayadii hore ruwaayadan cusubna qayb ka ah dhinaca kale waxay la fadhiya heesa Xuseen Cali Madoobe oo isna la xamiiste heesana ah hees kamid ah heesaha uu sameeyay oo London ku sameeyay Xuseen ayaa soo qaadan doona oo loogu yeero Ergo heestaas oo la sameeyay waagii dhaweyd madaxda Soomaalida adduunka isugu yimaadeen dalkan Ingiriiska Xuseen Cali heestiisa dib ayaan ka soo qaadan doona dhamaantiiba ku soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta muuqaal tabiyaha qaranka Soomaaliyeed magaalada London aad ma santahay marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ku turxan bixino sida caadada ahaan jirtay marka hees la sameeyo dhaqanka iyo afka iyo diinta iyo deegaanka maxaa looga baahan yahay Nuuridiin aan jeclahay inaan Kamaaludiin inaan ku hormaro marka hees uu rabo inuu qof alifo ama sameeyo maxaa loo baahan yahay laga eego afkii iyo heesti sameynteedii iyo dhaqankii iyo aad ma santahay horta sideedaba marka la doonayo qofku inuu hees sameeyo laba yiraahdo hees sameeyo qofku suu wuxuu sameyn lahaa looma sheego waxa kaliya ee qofka waa abwaannimadu waa wax Ilaahay bixiyo oo isagu wuxuu arkay uu ka sameeyo marka uu abwaanku hees sameynayo horta wax dhacay ama wax marka arkay uu ka sameeyaa haddii ay noqoto midhigiisu inay ka hadlaan dhaqan haddii ay noqoto inuu ka hadlo diin haddii ay noqoto inuu ka hadlo isaga shakhsiyadiisa iyo haddii uu doonay in uu jacaylba ka hadlo wax uu arko boorta abwaanku ka hadlaa marka hees waxay ku timaadaa wax uu abwaanku arkay abwaanimadana Ilaahay baa bixiya waxaan jeclahay ku soo wareejiyo abwaan Cabdi Ciise Caynte su'aal lamida saas maxaa ay looga baahan yahay markii hees la rabo in la abuuro in laga eego aad baad ma santahay socoto horta markii aad wax hal abuurayso waxa weeye wixii markaa jira ama bulshada dhexdeeda ha noqoto ama ha noqoto wacyiga markaa lagu jiro ayaa laga sameeyaa ama waxa ay ku qabsaday marka afkii Soomaaliga soo laabana heestii markii qofkii uu sameynayo maskaxdiisa erayada ka imaanayaan maxay tahay inuu eego erayadii siday u sameysan yihiin oo alifkii ku socda xagga kale ma loo baahan yahay in dhaqankii la eego oo hees aan ku habooneen waxyaabihii Soomaalida aan dhaqan u lahayn oo kale oo tilmaamaysa xaggii
shaqsigii macnaha xaggii macnaha ragnimadii iyo dumarnimadii jirkii qofkii taabanayso kale tusaale ahaan markuu dhaqanka Soomaalida iyo diintii maxaa la rabaa in laga heeso markuu qofku alif samaynayo waa runta waxa weeye dhaqanka Soomaalidu ay ku dhaqanto ama xag diineed ha noqoto ama xag dhaqan ha noqoto ama maaragtay bulshada nacam wacyiga markaas ay ku jirtaa noqotee wuu ballaaran yahay hadba waxa aad ka hadlayso waxa ay ku saabsan yihiin ayay ku xidhan tahay haddii aad jacayl ka hadlayso jacaylkaasi waxa uu ku yimid haddii aad wadaninimo ka hadlayso wadaninimadu waxa markaad uga jeedo ama wixii markaa kuu muuqdo haddii waayaha kale aad ka hadlayso waa iyaduna waa sidoo kaleeto marka hadba waxa ku hor yaalla umbad ka qaadanaysaa kadibna qaafiyaddu waxba maaha taasi qofkii abwaan ah qaafiyad ama god laga hadlaa nacam wax weyn oo nacam laysku daaliye maaha waa sahal godad baa jira tira ah ilaa 7 god ah marka ugu horeyso sida jiiftadoo kale sida guux sida maqalay warlaay sida muxuu ahay heesowleed ama shubaal batar waxyaaba badanaa jira godadka xagee bay qusayaan maqaafiyadda mise laxanka iyo ma waxay qusayaan tirada waxa aad samaynayso xarfa way kala dheer yihiin gabaga ayaa ugu dheer godkan guuxa la yiraahdo oo god dhaqameed ah ayaa ku xiga jiiftada Soomaalida oo badan qof kasta oo abwaana oo wax samaynayo jiifta u badan yihiin heesiisa ama waxa uu sameeyaa waxaanay wixii ahayn riwaayad ama geeraarku waa ku jiraa oo ama heesuu noqon karaa ama geeraar ahaan ayaa loo tirin karaa waa sidee jiiftada sidee u dhawaaqdaa marka jiiftada haddaan kaaga soo qaado waxaad ka soo qaadaa eestan riwaayadda xasan ganay ku jirtay xasan aadan iyo ay wada qaadaan saynlowgiyaal badan intay la egtaha markaa dhirarkeedu saynlowgiyaal badan waxaad soo qaadataa hees aniga aan sameeyaa jirto bismillayse caashiq oo kale ka soo qaad bismillayse caashiqa bilicdii adduunkiyo tiradu intay la egtaha saynlowgiyaal badan somagu oran tana fiiri bilicdii adduunkiyo intaasaa isku qiyaasa saada haye Kamaaludiin ayada su-aashan mid lamid oo kale macnaha heestii waxa waayadan dambe iyo waayadii hore way kala duwan yihiin macaaniga heesihii hore iyo kuwana aad u kala fog yihiin marka waxaa jira fanaaniin yaryar oo cusub iyo alifaa cusub oo erayo ay maskaxdooda kusoo dhacaan marka ma jira habraac Soomaaligu uu leeyahay afka Soomaaligu uu leeyahay marka hees la sameeyo hab la raaco sida godadka iyo jiiftada iyo laga hadlayo waxaan ka hadlaynaa heesta markaan ka hadalno markaan hees ka hadlno horta alxamdulillaah afkeenu marka hore waa qani oo af Soomaaligu uma baahnaba in tixraac badan la sii galo laakiin afkeena qaniya oo waxa ku cadaynaysa wadankan ingiriiska kale marka soo qadna Shakespeare oo ay gabayaaw haystaan qaafiyad kuma hees jirin ama qaafiyad waxba kama tirin jirin inagu hadduu ninku ama abwaan yahay ama uu heesay shacab ka bilaabo shacab ku dhameeya haddii xaab ku yani marbu say tahay dhalinyaradan dambana kullay inkastoo qaarkood ay heesay hore oo dariiqadii hore ay mareen haddana qaar baa jira cusub oo heeso cusub la yimi oo midhahoodii iyo dadaalkoodii ba sameeyay marka mar walba godkay ku degayaan waa god aynu ab iyo asar u lahayn sida aan ka dhaxlay fanaaniin badan qaar dhintay qaar noolba oo dariiqyo badan oo ay sheegeen anna aan ku socdo inay qaarkood soo inta badan soo galeen waan arkayaa waxaana keenaysa waa afkeena kaliya inta aynu ku noolay dad laga wada hadlo marka heesta marka la samaynayo awaanka samaynaya kullu wuxuu ku hadlayaa waa afkii uu kaga hadlay gurigiisii ama guriga hooyo ama afkii da Soomaaliga ahaa marka xataa dhalinyaradan dambe ku wax sameeya waxay isticmaalayaan de kelmad kuma jirto wali ma arag intan anigu imika
aan joogay dee aan arkay kelmad ama carabi ha noqoto ama ingiriis ha noqoto kelmad kale kumay darsan still way heesayaan midhana way samaynayaan waa laga yaabaa in laga eriyo waaweyn yahay laakiin inta kale oo dhan way ku saxsan yihiin afku ayaana xukuma afka hooyana waa malumaan waxaan rabaa in allah siiyo xuseen heesaa baa tahay la xamiistana waa tahay dabcan waxaa jira sidii heestii markii la samaynayay in la eego waxa dhaqanka in la eego tusaale haddaan usoo qaato heesaha la diido waxaa ka mid a kuwa macnaha dee erayaday ka hadlayso qaawan yihiin baa la yidhahdaa macnaha waa erayo qaawan oo aan sarbeeb ahayn sida tusaale haddaan usoo qaato heesta odhanaysa naskaaga gulucda leh markay faraygu gaaraan marcan waa wax qaawan weeye toosa يعني توب جبناها وشفكة يقع معهم oo kale marka ma jirtay turxaan bixin noocaas ama loo ma tahay dhaqankii wax ka reeban dadkii Soomaaliga diin ahaan horta dee alifaadu qofka abwaankii markuu xalifayo tareen buu ku alifaa matalan tan imika shafka igu macamiyo kale abwaanku sawir buu qaatay sawirkaasuu markaa ka sameeyey heestii marka abwaanku wuxuu ku talagelaya hadda tareenka sawirkaa uu markaa hortaagan ayuu ka sameynaya waana wax isku xidhan oo bilowgii ilaa shafkiigu camcam iyo halku ka bilaabaya waa wax isku xidhan oo markaa qiimihii ku taxan wax badan baa usoo joogta ma jiraan heeso noocaas oo adigu intaa aqoon u lahayd la reebay oo laga reebay markii la marsiiyey wixii la oran jiray jasuurada heeso la nasaqay ma jiraan oo dhaqanka lagu diiday inta xasuusan karto ma jirtaa heeso noocaas oo kale way jiraan riwaayad aan lahayo Djibouti aan ku sameeyey ayaa waxaa jira magacaan u bixiyey magacaas wuxuu ahaa hilba meel yaalahaad ma dhaafi karaa markaas waxaan ka hadlayay dhaqan xumada iyo dhaqanka wanaagsan marka waxaa la yidhi riwaayadda magaceedu waa anti sida ayaa jasuuradu magacee iigu diiday riwaayadda marka waxaan soo qaatay dhaqan miyi iyo dhaqan magaalo ahayd dhismihii hiddaheenna iyo dhaqan guur kala daaya taasaa la qaata marka oo riwaayadda magaceeda laga dhigay marka geeraar ku jiraya wuxuu ahaa inan xumaatay oo uuraysatay haddana lagu dafiray ama lagu diiday ayaa calaacalaysa oo hees qaadaysa heesta markay qaaday heestaa erayadeeda waxaa ka mid ahaa anigoo curdinahoo calwasaadka dunidiyo cadib xumi isoo marin oo caafimaad iyo cusubka iyo barwaaqada ku caweeye liibaan cilcilowga fiidkii intaan faraska caynsaday wadkaygii macayrsaday caweyska iyo dhaantada codka wiilkii ii tumay miyaa caynka ii galay cirka baalal uma lihi dhulku ciirsi iima leh xaggee baan u cararaa kadib inanti kale ee dhaqanka miyilahayd ayaa imaanayso gabdha hablahan oo calaalay markaasay leedahay maxaa idin helay markaasay leeyihin saas ayaa nala ku sameeyey markaasay leedahay hal yar aan idi weydiiye hilba meel yaalahaad ma dhaafi karaa waa maya dumarkaaba habkaasoo inantii hebadee halisteeda banaysa wiil hamuun u qabaa haddii uu la hadaaqo hog hadduu uga boodo haraadkii ka baxaya iyadana hoog ku dambaysa marka dhaqankii wanaagsanaay tanaa wadata geeraarka tirinayso kuwaana dhaqan xumay galeen waa taa lagu dafiray wixii ay sameeyeen marka laakiin waxaan qabaa anigu ama sidayba sugaanteeda ka aan ku jirinba sida hadda heestii cumar ulle cumar uu soo qaadanayo xuseen oo kale iyo shafka igu camcam iyo taa adiga aad soo qaadayo cabdinaas cabdiqadar iyo qaadayeen sida naaska gulucdale iyo aniga kuma jirto riwaayado badan aan sameeyey kuma jiraan nacam waana waxyaabaha nacam sugaantu aysan nacam aan dhaqanka noo ahayn nuruddin ereyadaas qaawan oo kale dabcan ma tahay in loo raaco xagga dhaqmiya inkastoo dee abwaankay ka soo baxayso dadkuna dadka dhagaysanayana waa laga yaabaa inay micno u sameyso oo laga jeclaadaba heesaha kale laakiin marka nidaam iyo
la fiiriyo dawliga ah iyo sida xaq dhowrkii qoraalka ahaa dee ay lahayd suugaanta ay jiri jirtay markii aynu heesaheenna la qaadi jiray intii aan xornimada markaynu qaadanay intaan kacaan ku dhalanin may jirin wax dastuuro la yidhaahdaa abwaaninta iyo waxay samayn jireen ama heesaagoo la qaadayay waxay ahaayeen heese sarbeeba oo lagu waaninaya uun dawladnimo iyo sideebaynu qurux u gaadhnaa iyo ayay u badnayd wixii jacaylana waa asturnaan jiray waxaa dhacday in kacaanka dhashay kacaanku wax kale xagga fanka markay noqoto kamu eegin heesaha qaawan oo kale wuxuu ka eegayay uun ama suuradii cabdinu ka dhawaajiyey jabuuti baa laakiin keeni soomaaliya dawladda wax alla wixii ka hor imanayay kacaanka ayuunbaa ayaa la joojin jiray oo arwaada xorriya ka mid ahayd arwaada kala badan ka mid ahaayeen ama hadraawi lagu xidhay ama maxamed nugo kalala u naxariistay isna waddanka laga yacni waxay ahayd wax siyaasi un laakiin waxyaabahan caawarada ah ama diinta ku saabsan horta dawladdii waxba kamay qaban waa lagu hesi jiray way socon jirtay marka kolley abwaanku isu arka ha u sameeyee inaanay diin iyo dhaqan ahayn de waynu wada garanaynaa laakiin lama hadli kari jirin markaa lama hadli karin oo fanaankii dawlad baa xukunta adigii dawlad baa ku xukunta shicibkii dawlad baa xukunta waxay way soconayaan marka kasoo baxayan kasoo baxayaan marka lama hor istaagi karo abwaanka hadda jira ama soomaaliga ama qofku xalifaya ma tahay inuu eego inay heesani dhaqankii soomaaliga iyo diintii iyo deegaanka marka xataa warno waa khasabo iminka marka aan heesa samaynayno ama dee wax la samaynayo dadkan cusub ama dee murtida cusub ee iminka aynu helayno kale dadkan dee soo baxay abwaaninta noqonaya khasab way u fakerayaanoo marka qabyaalad laga reebo oo qabyaalad waa cudur waxay ka mid tahay waxyaabihii bulshada haleynaya ka mid ha laakiin inay heesaagu isu qabiil raacaan way dhici kartaa marmarka qaarkood meelaha qaarkood laakiin in aan midho loo samaynin waxyaaba qaawan oo sidii berigaa dhacday aanay dhicin oo wax qaawan aan la samaynin oo inay sarbeeb ahaato sarbeeb waa lagu samayn karaa oo waa la odhan karaa inan yahay wejigaagii aragsidaadii waan qarin karaa naashada anoo taaban gaadadaada quruxda laan odhan karaa halkaan ka odhan lahaa naaskaaga curubta la ama gaadadaada quruxda la koobkaaga waxyaabahaas kale waan odhan karaa laakiin waana badan yahay imika inaan soo marin imika heeso ay saa u sameeyaan dhalinyaradu inta badan waxay ku maqin iyagu heeso jacayla iyo aan heesa uun berigii hore anagu fanaaniinteeni waxay ahayd fanaaniin way koobnaayeen imika waxaan aan la yaabanan arkay oo xagga fanka markaan ka hadlo dadweynihii iyo fanaaniintii waa badan haddii imika inta fanaaniin haysta ee soomaaliya oo kulli sukeeno la idhaahdo ha dhigaan ama show ama rawaad ha dhigaan waxaan malaynayaa iyagu inay kuraasa fadhiisanayaan dadweynuhu ay fadhiisanayaan masrax markaas dadweyni baa ka yaraadayba qof waliba uu heesaya bal hadii waaba la isku dhiibaa waana garanayni laakiin marka taas dadkii naftirku dadka ayaa soo saara fankii iyo fanaankii ma dadkii baa ka luntay inay cabiraan heesaagii wanaagsanaa oo cid walba iska dhagaysanaya ma nidaamkii baa maqan qofkii dee fanaannimada ku wanaagsanaayo inuu koox ku biiro tiyaatarkii soo maro ama golihii murtida iyo madaalada yimaado mise dadka ka luntay inay kala gartaan heestii wacneyd miraha iyo qiimaha lahayd oo wax ka maqan afkii soomaaliga qajawda musica un baa la iska dhagaystaa haddii roobku ku da'o meel baad gelaysaa inta dhibcada soo daayso roobka waad garanaysaa haddii laakiin daadku qaado garan maysid daadkana dhinacu kaaga yimid dadkii waxba ma xukumi karaanoo berigii hore fanaaniintii ama waabeer ha noqoto ama heegan ha noqoto ama onkad ha noqoto wixii aynu fan lahayn dawlad baa xukumaysa xisaabna way ku jireen laakiin inta koone adduunyada ayay u qaxeen dadkii u qaxay anigu waxaan lahaa
dadkaa soomaaliya lagaga yimid dadka kale qaxay waxay wax u qaban doonaan dee bal in wadankii la hagaajiyay waxa wada noqdeen inay heesaan weliba dhalinyarada ha ugu badnaato inta haddaad Facebook eegto ama YouTube eegto inta qof heesta qof kale ka garanay arwan yaab marka dadkii waxa markii daawadaan intaasoo kun oo qof heesaysa waxa laga yaabaa intay shitaan iska baktiyaan haddana mid kale way iska baktiinayaan laakiin marka hore xisaabi yaqaaneen waa hebel oo heesaya waa xasan aadan waa macna cigaal waa maandeeq waa saar axmed waa la garanayay tira noo kooban baan u ahay imika tiradii farahay ka baxday markaa dadweynihii ma xukumi karaan anagoo ma odhan karaan qofkaasaan dhegaysanayay qofkii ma garanayaan ila dadkii baa ka batay fanaaniintii baa ka badatay dadkii waa keerto waaya xuseen markaan soo qaadano sarbeebti iyo ereyadii qaawanaa ma tahay in heestii laga eego markii heestii uu sameynaya abwaankii alifay inuu xoogaa dee waagii hore horta system baa jiro waagii ay dawladdu jirtay waxaa jiray waa la control jiray heesaha oo jasuuray soo mari jireen heesta aan markaa qofka xataa waa la eegi jiro waa la jeegarayn jiray codkiisa iyo fankiisa iyo maaragtay nidaamkiisa qofku waa la jeegarayn jiray imika way ka yar duwan tahoo imika qofku nin buu doonanayaa hees miro sameynaya mirihii buu ka qaadanayaa dabeetna stuudio la tegayaa heestiibaa ayaa loo tumayaa qofkii markaa dee ama waxaa lagu macaaneynayaa muusigii ama wixii baa loo macaaneynayaa markaa dee qofkii fanaan buu ayuu qaadanaya markaas saasay ku kala duwan yihiin waa gartay waxaan markaan gelayaa laxan maadaama kamaal musician tahay waxaan umaleynaya shaqada inaan geli doono waxaan ku hormaraya abwaanka waa maxay laxan muxuu yahay hees baan maqalnaa laxan baa la saaraa laxanku muxuu yahay muxuu heesta u taraa xaggees kasoo bilowda mahadsantaas socod waxaa weeye abwaanku ereyuu sameeyaa ama qisuu sameeyaa oo markaa uu ereyo ama riwaayad ha noqoto ama gabay ha noqoto ama hees ha noqoto ayuu ku sameeyaa waa abwaan baa la yidhi haddaba abwaanka labaad waa la xamistaa way heestu jirtay bilowgii suugaanteena markay bilaabatay ilaa maanta la joogo intaasoo dhan cid xafidsan ma jirto laakiin laxamiisto waa xafidsan yahay laxankii hore u eg ma sameeyo marka waa abwaan labaad laxamiista markii lagu yiraahdo abwaan labaad weeye waayo ninka kala duwi karaa anigu marka aan ereyo samaynayo ee aan ereyo hore oo abwaan kala yiri ee hore loo yiri ma isticmaalayo wax cusub oo anigu markaa aan samaynayo laxamiistu waa lamid waa abwaan kale haya kamaal diino waxaa jira laxankii sida uu ka dhawaajiyey abwaan cabdi ciise shaqadaas uu baahan yahay waa hal abuurnimo kale weeye soomaalidu si gooniya u heystaa waxayna isku dhow yihiin wadamo badan sida filaya suudaan iyo ethoobia waxaa jira meelo laga soo qaado muusigii markii la sameynayo iyo xargo laga qaato iyo godod laga heesaa jira marka ma laxankaa lagu xiraa muusiga la sameynayo oo laxamiistaha la raacaa siduu u dhigay mise muusigiistu qofka muusigiisu waxbuu ku daraa isaguna waa laba su-aalood isdul yaalla marka abwaanku aada madhihiisa qaadato markaad laxamaysan tahay horta kelmadda laxan waa af carabi inagu waxa la codaynta la yidhahdaa af soomaali markaan heesta codaynayo haddaan dhaho heesta markaan laxanka saarayo waa kelmad carabiya laakiin af soomaali waxa lagu dhahdaa heesta markaan codaynayo ama la codaynayo ama dhawaaq codayntu waxay tahay midhihii abwaanka markaad eegto ayaa dadaad adigu tahay nin codeeye ah waxaad garanaysaa midhaha codka ku wanaagsan iyo teembo wax la yidhahdo daraamka hadhowto ay ku iman doonto kaa markaad ku samayso ayaa haddaad adigu muusiga saaraysana
dee aad saari kartaa haddii muusiga si kale loo goyo muusiga uu sameeyana oo isagana waa su-aasha dambe oo isna muusigii uu saaraya marka muusigu waa jawaabihii iyo macaaneyntii iyo tumistii lahankuna waxa weeyaan waa codayntiio waad ku luuqeynaysaayoo marka aad idhaahdo caawa halkanaynu fadhinaa oo qora abwaanku caawa halkaynu fadhinaa marka ii qoro caawa halkan baynu fadhinaa waan codayay markaas soo maha waa intaa horta codka iyo lahanku saas ku yimaada waxaana ku xidhan tahay midhaha haddii ay midho aada u wanaagsan yihiin abwaanku sameeyey lax wanaagsan baa ka imanaya ama cod fiican baa kaa imanaya ood ku samaynaysaa heesaaguna markaa uu ku raaxaysanaya marka laxanka la sameynaya ama codaynta ma waxaa loo eegayaa fanaanka qaadi doona mise waa la iska sameeyaa un may looma eegayo abwaanka iyo laxamiistu markay sameeyaan ama ninka codka sameynaya marka ay sameeyaan ninka ku fiican ama qofka ku fiican maya codka teembada khasbo teembada weli yaqaan waa nin heesaa ninka markaa heestaasi ku macaan ayuunba dee abwaanku uu isagu xaq u leeyahay odhan ninkaas ha qaado ama odhan karaa waa baylood iyo ko baylood ninka laxanka sameynaya ninka abwaankii wallahi heestaasi waxay nala wanaagsan soo codkii muusikii waxmaynu samey waxay nala wanaagsan hebel inaynu dhibno hebel baa kasoo baxaya oo dee la garanayo marka saas ayuu haddii abwaanku digido isagaa midhaa leh xor buu yahay ninku yidhaha loo dhiibo hadday xumaato dee abwaanku baa ceebta leh haye xuseen maxaa ku dari lehed laxankii laxanka horta waa sidaa uu sharaxay kamaaludiin waxay ku xidhan tahay horta qofku abwaankii heestu hadday macaan tahay laxankeedii way wadataa oo laxanka heesta macaan baa miraheeda yaa soo keena laxanka laakiin laxanku maaha wax sahlan maaha laxanku runtii aad buu adag yahay sababtaa hees baa lagu keenayaa sideedii qalalan ayaa lagu keenayaa marka waa inaad heestan aad la raacda ood u samaysaa codkii markaa waa inaad kala saartaa beesigu meelihuu gelayay wixii oo dhan waa inaad ugu tala gashaa marka wax sahlan maaha waaya waxaan gelaynaa marka riwaayadii cusbayd aada ugu yeerteen oo qurbaha lagu sameeyey oo aad jeceshiin goordhow inay kasoo muuqato t v-ga qaranka insha allah heestaasoo dabcan aad damacsan tihiin sida caadada ay ii sheegteen in ay kasoo bixi doonto t v qaranka islamarkaana la geyn doono tiyaatarada qaarkood qurbo lagu jabay iyo jacayl kala maqan abwaan cabdi ciise maxay tahay marka erayadan micnaha riwaayadda magaceeda iyo siday ku timid waxa weeye socoto innagu waddankeena waan ka soo qaxnay dhib baa naga soo wadaya dagaallo waxaan nimid qurbaan nimid qurbiina waa ku dhibaataysannaha iyadoo weliba ay dhan kasta tahay haddaan ka soo qaado keliya riwaayaddan way ku jiraan qoysaskan maaragtay waddankeena markaan joogna aan isqabsan jirin ee halkan marka la yimid maaragtay isqabsanaya ama maaragtay dhibaatadu ay ka dhex taagan tahay iyo carruurtan maaragtay la xirayo ee waxyaabaha annagu aanaa isticmaali jirin lagu xiro laakiin waxay ka tarjumaysaa dhacdooyinka waddankan ka dhacay kan ka dhacay iyo teeni waxaa ka jira marka riwaayadda waxaa kelmaddan qurbo lagu jabay iyo jacaylka la maqan inan baa wiil baa wuxuu la heshiinayaa gabar wuu soo dhoofeeyaa gabadhi waxay isku ogaayeen marka uu soo dhoofo oo uu qurbaha yimaado inuu asaguna markaa iyadii ou soo dabaro ou keeno dibadda ayay ballantahay ayay ballantu ahayd isagii markuu yimaado qurbihii sharciba ma helaayaba waddanka u yimi inanta xaggaasay ka soo qaylaysaa dadna been bay u sheegayaan waxaa la leeyahay ninkaas duurka kale wuu saaqidayo kanuu noqdayo waxbana kama jiraan isagaaba cadibanba oo aanba sharci haysanba iyadana xaggaasay ka qaylaysaa isagana xaggaanu ku dhibaataysanya marka waxyaabo badan oo sidaas oo kale ah ayaa ku jira riwaayadda marka qurbo lagu jabay iyo jacayl kala maqan xaggana dhib baa nagu haysto xaggana dhib kalaa nagu haysto laakiin alxamdulilah hadda waxaan u malaynaa in laga gudbi doono
way Kamaaludiin kalley dee riwaayadan waxaad ka mid baa tahay oo musician waa tahay waxaa ka mid waxyaabaha ku jira oo erayadii iyo heesihii iyo maxay kaloo taabanaysaa wallaahi dee abwaankii riwaayadda lahaa uu inala fadhiya anigoo qaybo badan baan ku leeyahay inta badan laxamada ayaan leeyahay riwaayaddu markaanu abwaan cabdi ciise iyo anigu ayaa gooni habeen u wada fadhiisanay war dhibaatadan qurbaha taalla dadkeena haystay kuwii xaggaa jiray maxaynu ka yeelnaa abwaan riwaayad ka samee baan ku idhi ilaa 5 cisho waxaan la gaadhayn wiig ma dhammayn baan filaya abwaanka riwaayaddii uu qoray ayuu ii keenay waan akhriyey heeso badan baan laxmadii saaray laxmadii baan ka shaqeeyey matalaadii baan qayb sameeyey yacni shaqo badan riwaayaduna oo aad bay u dhib badan yihiin marka kolley waxay ka hadlaysaa un wax dhaqanka soomaalida halkan timi iyo kuwaynu ka nimi waxa riwaayadda magaceedu ka dhawaajinayaa jacayl iyo qurbe laakiin way maldahan tahayoo humaag baa la yidhaahdaa way ka weyn tahay waxay ka hadlaysaa waxyaabo badanoo xagga wixii ka jiray iyo xagga dhibaatada ka jirta ayay ka hadlaysaa marka taasaanu ayaan waa kala saarayna marka laba magac isku dhegama baa moodaa qurbo lagu jabay qaybta kalena jacayl kala maqan jacayl kala maqan gabadhii baa xaggay jirtaa wiilkii baa xaggan jawaan garanayna qurbo lagu jabay waa dhibaatadeena halkan maxay tahay maxaa marka ka soo qaadataa waxaan ka soo qaaday kaba soo qaadbata ugu sahlanba kun ayaa loo nacam aan aragnay oo dhibaatada qurbaha ka taagan ninkan halkan yimid inanta gabadha ballanta usoo qaaday haddana asagiiba sharci waayey ma garatay marka halkan ku jaban yahay halkan ku jaban yahay ko qoysas baa halkan yimid markii aan dalkii joognay ya oday reerka u duuban iyo haweeney ka dambaysa iyo way ku jirtaa sheekadaasi macna baad marka gaagaaro oo aad u dheer weliba ma caruurta ka hadlayso waan ka haynaa laakiin riwaayadda way soo socotaay inaan ka hor dhicin maxaa ka mid a marka ereyada ku jira qaarkood isdhaafsanayo kolley nacam islaantay odag ay isdhaafsanayaan mase dadka kale wax matalaya qor macnaha qurbaha lagu jabay maya waxaaba jiraba waaya socota waxaa jira wakti hore ayaa dad soo dhoofay iyadoon dhibaataba jirin ama seaman ha noqdo ama maaragtay isagu maaragtay shaqaha usoo dhoofay kadibna dhibaatadii iyo ama dagaaladii sokeeye ayaa dhacay ninkaana ma ogeyn baa isagu dibadda jooga mogtahay dadkii soo qaxay kuwa ah iminka Kamaaludiin iyo waxaa matalayay nin Cabdilla la yidhahdo oo riwaayadda labada nin oo waxaa la yidhahdaa roge iyo rare riwaayadda dhan nimanka qasay oo xigmadeeda ku jirto ma garata marka labadoodii ayaa nin odaya oo waqti hore soo baxay oo iska qurbaawi ahaa ay madaxa isla gelayaan waxay leeyihin odagaagan nin asaasaqay qurbaa ku asaasaqay asaguna wuxuu leeyahay xabada keentaaba tiim ma garata laakiin anigu nin khibrad lahaana qurbiya la isku harowsanaya marka ay isku keenaan ninkaani geeraar buu akhrinayaa mugtahay oo iyakii maaragtay oo xoogaa maaragtay u hanjabayay marka wuxuu leeyahay abaartii mulcalays ee karmiicigu moorada duugay iyo milay aada u fogaa ayaan muqdisho aan ka miligtay oo mayl ka raacay badweynta maarsee baan ku horreeyey milagii ka dambeeyena maraakiibta dagaalka ee miigu ay ka kacaan baan maarshaal guud ka ahaa milagii ka dambeeyena maraakiibta xamuulka ee badaha dhex mushaaxdo ayaan maareeye guud ka ahaa buui wuxuu ku leeyahay ninuu Carter casuumay Jimmy Carter oo Mouston ay sarkeen kiishina Mouston ay sarkeen oo mitraa la casheeyey oo madaaliyo dhowr la siiyay bilado oo madow baan ku ka ahaa idinkoo madax geel iyo majo oo ku cunay maalbool iyo dhexdeeda
oo shah madow ku qoreecday mardi mataal kartin buu leeyahay odaygii qurbaha wax badan jooga saas leh oo kale Xuseen uu noo matala diro Soomaha xuseen matal waya kabaldilo qaybta marka waxaan eegaynaa jacayl kana maqan wallahi dadku waxay jecel yihiin marka jacayl laga hadlo waxaan mudaan dhinaca kalena ay leedahay niyo jacaylka kala maqanay dhibaato badan buu leeyahay waxaan ka baqayaa haddaan riwaayadda aanu jacayl kala maqan kasii sheekayno dadka hadhowto ina daawanaya ama caawa ina daawanaya inay qaarkood ooyaan inan baa jira qofku jeclaa inuu keeno doonayo keeni karla inan baa jirta inay ninka jecleed inay keento keeni karla marka maxaa laba kala dan roon ifiwaaga u dilaacay mid baan daalacan arkayno mid baa dhagaduubano mid baa dayro sheegto oo curyaan ku diganaya yani adduunyadu ayaa saa u kala baxsan miisaanka ha marka intii wax jecelna waxaan leeyahay ilaahay jecelkiina hadii soo dhoofiyo inta kalena laakiin magaca riwaayadda si abwaanku da u yidhi waxa weeyaan jacayl kala maqan waa labada qof ee isjecel inay isu yimaadaan jecel iyo qurbaha marka jacayl kala maqan already uu ka hadlay anigu waxaan jeclaa qurbahan lagu jabay ayaa muhiim ah labada kalmadood qurba lagu jabay jacayl kala maqan waa gooni laakiin qurbahan lagu jabay ayaa waxa weeyaan musalsal kale leh oo wuxuu leeyahay sheeko dheer oo kale qurba inta lagu jabay imika haddaan tiriyo waxaan ka baqayaa inaan waqtiga inoo saamixi waayo waayo xuseen haye riwaayadda maadaama mid ka tahay qurba lagu jabay jacayl kala maqan maxay matalaysaa iyo aad leedahay waa ku jiraan waano ayaa ku jirta xagga waanada 40 qof ee maartay kala maqan ee isdoondoonaya ayaan ku kala dhex jiraa oo kolba qof calaacalayaan u imanayaa waanayaa allah waqtigii uu iska iman doonaa iska samir asaasoo ku jilayaa sanadu ku jiraan dawa tahay markaas dawa gooniya waya waxaan u laabanayaa markaan gudbayaa gabay waqtigan taagan aad ku dartay oo ka hadlayay isbedelkii Soomaaliya ka dhacay abwaan cabdi ciise gabaygaas ayaan rabaa inaan yara taabato wuxuu ku saabsanaa horta marka hore intaadan gabaygii noo sheegin waxaa dhaliyay iyo maxay sidee kugu timid inaad erayadaa samayso ya waad mahadsan tahay socoto gabagan isbedelka hadda dhacay wax badan ayaan gabayo soo sameeyey oo ah waddankeena dhibaatada ka taagneed iyo waano iyo maaragtay ducaa intaba gabagan marka doorashada hadda dhacday tii madaxweynaha iyo madaxdii ka horreysay ee noo sii xaartay na gaarsiisay in maaragtay doorasho xora aan gaarno iyo nabadgelyana aan helno waxoo dhan way ku wada jiraan laakiin waxa ay ku saabsan tahay dardaaran iyo hambalyo oo madaxweynaha cusub iyo xukunkan cusub ee yimid aan u hambalyaynayo iyo baarlamaanku sida nacam xaqa ah ee ay u codeeyeen sida aan daawanayay way ku wada jiraan iyo nacam madaxweynaha cusub oo aan leeyahay sidii waktigii gumaysigu uun haystay ee leega iyo xisbiyada ay jireen way ku jiraan iyo nimankaas maaragtay guusha noo horseeday ee keenay guusha ee gumaysi naga saaray sidoodii noqo aan ku goobaabinayo kadibna ducaa ugu dambeyso marka waxay timid qaybtan aad shiraysay waxay timid markii aad ay socotay doorashadii iyo madaxtinimadii Soomaaliya erayada ku jira marka wax ma nooga sheegi kartaa horta marka hore waxaan ka bilaabay anaga
marka horan ba ku bilaabay wax badan aan guubaaba soo waday aadna maaragtay aan uga damqanayay dhibaatadii soomaaliya ka jirtay iyo burburkii na gaaray oo hadda xataa qurba lagu joogo jacayl kala maqan waxaa keenay haddaan waddankeena joogi lahayn nacam kama sheekeynaan qurbe iyo dhibka uu leeyahay deganaan la-aanta iyo dhibaatadii nagu dhacda ayaa keentay inaan qurbana nimaadno qaar dhaqanka ka tagaan qoysas dumaan nacam dhibaatada badan tanaa noo keenta marka gabaygan muxuu oranayaa marka taas waa runta socdaal socoto wuxuu ka bilaabanayaa horta marka hore anaa inta yaroo hore anaa nacam wixii aan samay jiray iyo waxaan ku fikiray ayaan ka hadlayaa soomaali waxaan xeeriyo oon wada xanaaneeyo xigmad gabay waxaan kula hadlo oon sida xareed siiyo xasilooni waxaan kala hadlo oon ugu xadiisaaba xumaanihii soo dhacay waxaan uga xog sheegaaba xaruntaan rabnay taagan tahay waa xamdiilah xidigaa la doortay ma ahaa xidigaa u soo baxay dadkii waa i xagal daacay hambalyaan xariir uga dhignay iyo ducaan xisaabnayne adigu arrimuhu dheer gadaal baan kasoo qaadan doonaa isagoo dhamaystiran insha allah gabaygaagi waan haynaa aada umahadsan tahay dabcan waxaan umaleynayaa inaan soo gabagabeyn doono riwaayadii aad dhowaan sugeyn qurbo lagu jabay iyo jacayl kala maqan oo TV-ga qaranka kasoo bixi doonta insha allah la damacsan yahay in la gaarsiiyo meelo badan oo tiyaatar wadankan iyo gudihii wadankiiba ugu dambeyntii idinkoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan maanta yaad halkan uga hambalyeynaysaa asxaabtii fankii dad waxaa jira aad kala lunteen oo maleynaya waqti hore way dhici kartaayo fankay waqti in badan baa ku daawanayso markay ay arkaan sawirkan waxay oran doonaan soonaya malaa wuu nool yihiba qaar oo haystay inaan dhintay inay israel walaa waa kaa nool Australia New Zealand Canada adu meel walba way dhici kartaa jacaylka kala maqan xataa inay soo gashaa laga yaaba may umalayn maayo jacayl aan kala maqnay horta ma jiro kowde waxa weeyaan horta marka hore waxaan hambaliyo aada u fara badan u direeyaa TV-ga Somali National TV adigoo socotaana mahad gaaran ku siinayay gudoomiyaha iyo agaasimaha intaba maadaama aan fursadna aan caawa u helnay halkan inaan caawa idinla fadhiisano ama aan wareys naga qaadaan waxa aan ugu muhiimsan oo doonaya inaan ka hadlo riwaayadan abwaan cabdi ciise sameeyey aynu caawa ka hadlaynay inaa TV-ga TV Somali National TV-gu uu naga caawinayo inta ugu badan ee ahay riwaayadii marka hore noogu hirgeli weyday waxaa annagana qaybtiina idinku as TV ahaan qaybteeda fanka waxaan ka hadlayaa inaanu idin mahadnaqno maadaama aad ballan noogu qaadeen in ay riwaayadan soo baxdo oo aanu noqono dad uday wada shaqeeya halkan markaa anigoo Kamaaldiina waxaan marka hore salaamayaa oo xaq weyn ugu leh waalidkay hooyaday iyo walaalahay xaaskayga oon jecelahay iyo carruurtayda meel kastaba ha joogaane fara badan yihiin waxaan salaanta ugu weynna siinaya fanaaniinta Soomaaliya meel kastay joogaan iyo bahdan TV-ga qaranka Soomaaliya aada maasantahay xuseen haye adiga laftarka waxaan maleynayaa dad badan oo ay ismoogeydeen iyo qolooyinkii fanka iyo jeclaad afmaalka sababta aad baad mahadsan tahay runtii waa fursad halkan waxaan ka salaamayaa waalidkay meel kastay joogaan waxaan ka salaamayaa carruurtayda iyo hooyadood waxaan ka salaamayaa walaashay oo degan Ingiriiska iyo faamiliga intii kaloo jooga Hargeysa waan salaamayaa iyo Muqdisho qaar ay joogaan waan salaamayaa waan mahadsan tahay aada mahadsan tahay haye cabdi caynte abwaan
adiguna yaad is leedahay xasuustaada dadka aad is leedahay caawa halkan ka faa'iideyso aad baad mahadsantahay socoto anigu muddo waxaan ku faraxnahay waddanka iyo dadkeena iyo dalkeena marka horta marka ugu horreysa anigu waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iska salaamin iyo inta af soomaali ku hadashaba kadib waxaan salaamayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba mid hore iyo mid dambaba waxaan salaamayaa tv-ga qaranka soomaaliyeed SN TV halsaana dhiba looday guddoomiyaheeda agaasimaha socoto oo caawa maaragtay waraysiga naga qaadayo wada fadhino oo adiga ah aad u mahadsantahay marka iyo caruur badan way jiraan laakiinse caawa kama gaari karo waqtiga hadda aan socono meel kastaba ha joogaan waa salaamay walaalahay iyo caruurteeda aad u mahadsantahay waa mahadsantahay kulligiin Kamaaludiin kulligiin aad u mahadsantahay ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan kusoo dhammeeyo barnaamijka markuu dhammaado kadib hees uu qaaday heesaa xuseen cali madoobe oo la yidhaahdo ergo ereyada heestaana waxaa iskale abwaan cabdi ciise cinte isaga laxanka waxaa sameeyey isla xuseen cali madoobe musiga Kamaaludiin waa isku tagteen heestan waan ku goobanay heesta waan ugu talagalnay dhaxgal weeyaan heesta heestan waxaa la sameeyey waqtigii shirkii London ka dhacay loo sameeyey Soomaalida la isugu soo dhaweynayay lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya 23 bishii Febraayo heestan oo ku aadan wada hadalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo markaa adduunyadu ay wada fadhiyeen dalkan Ingiriiska magaalada London shir weyn oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo dawlado gaaraya 60 dawladood marka dabcan waxay taabanaysaa nabadda ayay ka hadlaysaa heestaas ayaan barnaamijka soo gabagabeyn doonaa waxaana aad daawanaysaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed stuudiyaha magaalada London waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo ay soo jeedinaya anigoo Cabdirasaaq Socoto waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay abwaan Cabdi Ciise Cinte oo ah riwaayad badan sameeyay ahna abwaan sameeyay heeso iyo gabayo lahna la xamiiste sidoo kale waxa igala qayb qaadanayay barnaamijka Kamaaludiin Xaaji Yuusuf oo ah musician abwaan la xamiiste ahna jila riwaayado badan wax ka soo jila sidoo kale Xuseen cali madoobe oo isaguna heesa ah la xamiistana ah heesta ugu dambeysana aan jecelahay barnaamijka inaan kaga tago intaynu ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
la soo afjaro